sida ay ciyaaraha dawladda Soomaaliya ee uu hogaaminayo ay diyaar u tahay saxaafadda bulshada iyo qaboojinta qulubta ummadda Soomaaliyeed. weli madaxweynaha ayaa markaasi qeybaha kala duwan ee garoonka markaa ku soconaya si uu gacan qaaday ciyaartooyda iyo ciyaartoyda ayaa si toos ah maanta u daafurmaya oo halkan ka dhacaya qeybihii garsoorka waxaana goobtan ku wada sugan dhammaantood gacan qaadaya bahdii warbaahinta iyagoo ka wada qayb qaadan doona ayaa barnaamijka markaasi baraya madaxda qaranka halkan ayaa kusoo dhaweynaynaa si ay halkan khudbadaha ugu jeediyaan madaxda qaranka halkan aan kusoo dhaweynaynaa si ay khudbadooda halkan kaga jeediyaan bulshada ay wada maqlaan qoraal isboorta ayaad naga daawanaysaan saaxiibayaal ciyaarta ayaa goordhow bilaaban doonta madaxda qaranka halkan ay ka hadli doonaan warbaahinta waxaan u sheegaynaa halkan ayaa lagu hadli doonaa madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mas-uuliyiinta kaleba halkan ayay ka jeedin doonaan qoraalooda qiimiga badan waa hagaag weli waxaa markaasi soconaya gacan qaadka madaxweynuhu markana kubadda ayuu shuudi doonaa ama uu tuuri doonaa si ciyaaruhu u furmaan madaxweynaha ayaa madaxweynaha waa uu furay waad arkaysaan kubadda ayuu mawlaaday waa noo furan tahay tartanka madaxda qaranka ayaana ka dursugaynaa haddana inay khudbadooda halkan ugu joojiyaan hanuuniyaasha kooxda heegan ayaa ku wareejinaya madaxweynaha ayaa waxaa markaasi markan uu ku jiraa weli garoonka ciyaartooyda koonfur galbeed ayaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay la geli doonaan sawir wada jireed ah ama markaasi sawir guud ولنا سيستيبي أيضا naga daawanaysaan saaxiibayaal madaxweynaha iyo wafdiga kale oo hogaaminaya ayaa markaasi ka soo bixi doona garoonka waxa uu soo dalbanaya madaxweynuhu dhanka taageerayaashu waado inuu gacan qaado taageerayaasha ciyaartooyda keedka ayuu gacan qaadaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa markaasi qeybaha garoonka ayuu ka soo bixi doonaa ciyaarta ayaana bilaaban doonta labada xul madaxweynaha ayaa ku soo wajahan qeybta sare ee garoonka heegan ayaa soo bandhigaysa suugaan ay ugu talagaleen ciyaartooyda gobolka banaadir ayaa wada tashanaya ciyaartuna waa ay bilaaban doontaa waa ciyaartooy aad loo soo xulay muddada tababar sameynayay welina access t v ayaad naga daawanaysaan saaxiibayaal ciyaartooyda labada kooxood garoonka u geli doona ciyaartooyda koonfur galbeed garoonka ku jirta waxaa ka mid ah cabdi xaamid muxidiin maxamuud naasir cabdulaahi siid cali aadan iyo soo kaleeto siid cali maxamuud aadan isaaq maadi iyo liibaan waa kuwa tobanka ciyaartooyda garoonka ku jirta xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed dhanka gobolka banaadir dheere cabduqaadir dheere jaamac axmed aadan cabdulli cabdiraxmaan maxamed axmed nuur ayaa markaasi ka mida baanuur sayga liibaan soongo buush maynis xasan suwaansi cabdulaahi qambor iyo cabdulaahi ayaa markaasi ka mida ciyaartooyda cabdulaahi qambor komson gobolka banaadir garoonka ku jirta ciyaartu waa ay bilaaban wiilka stv sportka ayaad naga daawanaysaan saaxiibayaal lambarada xiriin ciyaartooyda garoonka ku jirta haddii aan idin dulmaro koonfur galbeed waxaa markaasi garoonka ugu jira cabdixaamid oo goosh ah muxudiin oo difaaca maxamuud oo difaaca naasir oo difaaca ayaa cabdulaahi oo ka mida qadka dhexe sid cali aadan iyo markaasi aya gardaa sid cali muudey maxamuud aadan ayaa qadka dhexa aadan isaan ayaa soo kale kuwaarka hogaaminaya ciyaarta ayaa bilaaban doontaa garsoorku waxaa uu sugayaa in markaasi markaasi dhamaanaysa heestan sugaan
taagan in markaa ciyaartu ay baastaan tababaraha kooxda koonfur galbeed ayay markaa dadaal ugu jira kooxdii sidii 3 dhibcood ugu horeysay garoonka ama ciyaartu way heli lahayd goordhowna ciyaarta ayaa bilaaban doonta kooxda xululiyaasha qaranka ee xiiganka ayaa ay maasiin waan uga mahadcelinaynaa sugaantooda qiimaha badan ee halkan ka soo jeediyeen mudana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dhalinyarada iyo isboortiga ee dalkan soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gaaliyaha qaranka gudoomiyaha gobolka banaadir axmed magaalada muqdisho mudane shariis xuseen jimcaale taliyaha ciidanka asluubta gudoomiyaha gobolka banaadir xildhibaanada iyo saaxiibada kale ee madaxda qaranka ee halkan ku sugan mansabka gac kasta ay leeyihiin oo ay ku joogaanba aad iyo aad ayaan ugu wada mahadcelinaynaa kateekadkooda munaasabada ay halkan ku joogaan mudana madaxweyne mudanayaalay marwooyin waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsan yahay maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga inaad kala soo qaybgashaan munaashabadan lagu daafurayo ciyaaraha gobolada dalkeena soomaaliya oo istaadio banaadir si toosa kaga dhacaysa kana bilaabanaysa waxaan jeclahay inaad qoraadiina kooban aad halkan ka jeedisaan iyadoo dabcan ciyaartan aad arkaysaan koonfur galbeed iyo maamulka gobolka banaadir ciyaartina waa ay bilaabatay labada kooxood ee koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee gobolka banaadir markan xidigaha koonfur galbeed ayaa weerar laakiin gool ayay u tagtay si aad ula wadaagtaan dareenka bulshada ciyaaraha daawanay banaadir ayaa kubadda soo tuuraya waa uu soo tuuray weerar ayay markaa hayaan xidigaha gobolka banaadir laakiin koonfur galbeed ayaa kubadda iska saartay ciyaartu waa ay bilaabatay labada xule koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto xulka gobolka banaadir markana gacantuur ayaa la samayn doonaa koonfur galbeed ayaana soo tuuranaysa waa ay soo tuurteen xidigaha koonfur galbeed ayaa wada ciyaaraya weli iyagaa kubadda haya markan xidigaha gobolka banaadir laakiin qalad ayaa la dhigay maxamed nuur muxudiin ayaa markaa tilmaamay oo garsoorka ciyaartay in qalad ay galeen xidigaha koonfur galbeed dankoodana loo wadi doono dheere xaaji dheere waa golayaha kooxda gobolka banaadir markan gobolka banaadir ayaa soo tuurtay kubadda
وقولك ومامك كفر البيت من عودا يكلينيا عيالك وكفر البيت عدان كنا gobolka banaadir ayaa markaan weerara waa kan lambarka 7 gobolka banaadir liibaan ayaa haya waa kan liibaan weli isaga haysta koonfur galbeed ayaa la wareegtay lambarka 9 waxa uu la ciyaaray saaxiibkii madax ayuu
داوديال way baaseen ciyaartoyda may noqon kubadda marka waan geeslaad ama corner kick daawadayaal ciyaartoyga gaado muxiyadiin ayaa soo tuuli doona markaan daawadayaal oo koonfur galbeed ka tirsan karoos ayaa yimid muxiyadiin madax markaa koonfur galbeed gobolka ayaa helaysa kubad karogaalaysa kontra taaga gobolka banaadir fursad fiican wali laakiin may noqon koonfur galbeed geeska ay geerayaan waa soo karoosaya caadi saaxiibkay ula ciyaaraya fursad fiican markaa qadka dhex laakiin waa laga diiday kubadaasi banaankay u baxaysaa markaana waa faragacan ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee gobolka banaadir ayaana sameynaya kubadii way baasteen fursad fiican markaan gobolka asocota ayaa leeyahay koonfur galbeed waayahay koonfur galbeed fursad fiican lambarka sagaalaad fursada tara garsoorkaa socota ayuu leeyahay laakiin qalad ayuu ka dhigay ciyaartoyga lambarka sagaalaad ee xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed aadanna ismaaciil ciyaaraan kaleeda ayaan qaladkaas laga dhigayaa daawadayaal qaladkaas ayaa loo dhigay lambarka sagaalaad ee koonfur galbeed qalad ayaa loo dhigayaa ciyaartoyda koonfur galbeed kooxda koonfur galbeed ayaa markaa loo dhigayaa qaladkaas lambarka 10aad ee koonfur galbeed ayaana soo tuuri doona markaan ciyaaraanka mahdi la yiraahdo koonfur galbeed lambarka 10aad waa soo tuuray mahdi laakiin ciyaartoydii gobolka banaadir kubadda waa iska soo saareen lambarka 5aad ee koonfur galbeed ayaa markaan ciyaaraya cabdullaahi kubadda isaga ayaa wata ciyaartoyga gobolka banaadir ayaa hela markaan fursad fiican ay helayaan lambarka 11aad ciyaartoyga xasan la yiraahdo waa fursad fiican markaan xasan si ayaa haya waa laga diiday kubadii saaxiibkii markaan cross gobolka banaadir laakiin ma noqon ciyaaraanka golahayaha koonfur galbeed ayaa markaan helaya cabdiwaahid ciyaaraanka la yiraahdo gobolka banaadir kubadda waa iska saarayaan ciyaaraanka lambarka 5aad ee la yiraahdo cabdinuur faragacan koonfur galbeed ayaa ciyaaraya lambarka 10aad geeska ayuu gelayaan waa la soo tuuraya markaan golahayaha ayaa helaya deere cabduqaadir
deere golahayaha xulka kubadda cagta gobolka banaadir fursad fiican markaan kooxda banaadir ayaa markaan helaysa lamarka tobanaad ee banaadir duulaan fiican ayuu samaynayaa fursad fiican lamarka toban xasan waayahay laakiin may noqon kubaddaasi fursad fiican ayuu ahayd ninka goolka dhaliya lamarka tobanaad ee kooxda banaadir ee yidhaahdo maynes ayaana u furnayd kubaddaasi inuu u baaso laakiin xasan suwaaj ayaa samaynaya isku day ah inuu goolkii la aado laakiin uma aysan noqon koonfur galbeed markaan lamarka labaad ee koonfur galbeed cabdullaahi kubaddii ayuu la ciyaarayaa maxamuud iyo cabdullaahi ayaa isla ciyaaray laakiin may noqon golayaha kooxda banaadir ayaa markaan helaysa kubadda helaya markaan daawadayaal golayaha banaadir ayaa asiga haya weli oo la ciyaaraya kubaddii asiga ayaa weli gacanta ku haya qaybta hore ciyaarta ayaa soconaysa daawadayaal kooxda banaadir waa gool kooxda koonfur galbeedna waa eber daawadayaal Access Sports TV ayaa nagala socotaan fursad fiican markaan gees kale ayaa la geenayaa waayahay gobolka banaadir ayaa markaan duulaamaysa gees kale ayaa geenayaan ciyaartooyda banaadir karoos ay sameynayaan banaadir fursad fiican markaan banaadir laakiin golahayaha koonfur galbeed ayaa kubaddaasi helaya daawadayaal cabdi xamiid ciyaaraanka la yiraahdo cabdi xamiid koonfur galbeed golahayaheeda waa soo tuuraya markaan kor ayay ku maqantaa markaan daawadayaal madax ay sameynayaan gobolka banaadir qad ka dhexe markaan koonfur galbeed fursad fiican markaan banaadir koonfur galbeed ayaa helaysa walaa kubaddii markaan gees kale ayuu soo tuurayaan control fiican banaadir ayaa mar kale heshay kabtankii kooxda banaadir fursad fiican ayuu u tuurayaa ciyaartooyda banaadir laakiin may noqon lamarka lixaad ee kooxda banaadir kabtanka kooxda ciyaaraha ku magac dheer Stega ayaana kubaddaasi soo tuura daawadayaal waa gool yeber si toos ah ayaad nooga daawanaysaan Access Sports TV daawadayaashu kale aan Access Sports TV aan daawanayno ku sugan Muqdisho iyo waxigeeda waxa ay si toos ah naga daawan karaan page-kan internet-kan ku leena Facebook-ga ee Access Sports TV waayahay banaadir markaan banaadir ayaa heesta kubaddii garsoorka ayaa qaad u dhigaya ciyaartooyda banaadir lamarka toddobaad ee koonfur galbeed ayaan laga dhigayaa qaladkaasi daawadayaal Sid Cali Maadey ciyaaraan kala yiraahdo banaadir ayaa kubaddii soo tuuri doonta markaan cross fiican ayay sameynayaan kor ayay ku maqan tahay madax koonfur galbeed golahihii lamarka afraad ee kooxda koonfur galbeed kubaddii dhinaca kale ayuu gadiyey naasir ciyaaraan kala yiraahdo naasir golahihii ayuu la ciyaaraya cabdiwaahid kubaddii kor ayuu usoo tuuray madax ayuu sameynayaa sayga fursad fiican markaan koonfur galbeed lamarka tobanaad weli markaan lamarka tobanaad waa laga dhigayaa qaladkaas ciyaartooyda banaadir koonfur galbeed lamarka tobanaad mahdi ciyaaraan kalaada ayaa lagu galay fursad fiican markaan lamarka lixaad ee koonfur galbeed control fiican koonfur galbeed lamarka sideedaad asiga ayaa kubaddii haya weli gees kale ay u soo gadinayaan banaadir ayaa helaysa kubaddii banaadir ayaa haya banaadir fursad fiican markaan control fiican laakiin may noqon control fiican ayuu rabay inuu sameeyo lamarka sagaalaad ee koonfur galbeed laakiin uma aysan noqon daawadayaal aadan ismaaciil ciyaaraan kala yiraahdo qadka dhexe markaan gees kale ayaa la geenayaa koonfur galbeed banaadir ayaa markaan helaya kubaddii banaanka ayay u baxaysaa daawadayaal waana fooragacan weeyaan markaan kubadda daawadayaal koonfur galbeed kubaddii waa soo fooragacamiyo soo tureen control fiican banaadir gees kale ayay geenayaan koonfur galbeed lamarka shanaad ayaa haya fursad fiican ayuu sameynayaa cabdullaahi kubaddii uu soo tuuray banaadir waa iska soo saareen madax kale fursad kale markaana cabdullaahi socota ayaa leeyahay banaadir ayaa haysata kooxda banaadir qadka dhexe ciyaartu weli waa socotaa daawadayaal qaybtii hore ayaa soconaysa fursad fiican markaan laakiin may noqon banaadir fursad fiican ayay iska khasaariyeen daawadayaal banaadir fursad fiican ayay iska khasaariyeen oo weli markaan koonfur galbeed gees kale garsoorkii ayaa ciyaarta bedel sameynaya lamarka toddobaad ayaa soo bixi doona daawadayaal lamarka toddobaad ee koonfur galbeed ayaana ciyaarta soo baxaya daawadayaal
ciyaartooyga la yiraahdo Cali Maadey ayaa ciyaarta laga saaraya daawadayaal lambarka 12aad ee kooxda Koonfur Galbeed ayaa markaas soo galaya daawadayaal lambarka 12aad ee kooxda kubadda cagta ee Koonfur Galbeed ayaa soo galay madax ay sameynayaan ciyaartooyda lambarka 12aad ayaa haya oo Koonfur Galbeed laakiin kubaddaasi waa uu celin kari waayay waana goosha ciyaartooyda gobolka Banaadir ciyaartooyda goolahayaha ayaa soo tuuraya fursad fiican markaan lambarka waa la soo tuuraya koray ku maqan tahay daawadayaal cross ay sameynayaan gees kale ayaa la geenayaa wali markaan dhinaca kale ayaa loo soo tuuraya daawadayaal ciyaarta banaanka ay u baxaysaa markaan kubaddaasi waa banaanka foragacan Koonfur Galbeed ayaa sameyn doonta daawadayaal Maxamuud ayaa sameynaya lambarka 3aad ee Koonfur Galbeed kubadii waa u baasay Maxamuud Koonfur Galbeed ayaa ciyaaraya lambarka 9aad oo ah nin qatartiisa leh Mahdi aadan kubadii laakiin waa laga saaray foragacan mar kale Koonfur Galbeed ayaa sameyn doonta daawadayaal Maxamuud oo soo faragacanay aadan kubadii uu gaari kari waayay dheere ciyaartooyga Banaadir goolka ugu jira ayaa markaan haya ciyaartooyda Banaadir goolka ugu jira kubadii uu soo tuuray kore daawadayaal wali markaan madax ay sameynayaan wali fursad fiican markaan banaanka ayaa soo looga saaraya daawadayaal banaanka ayaa looga saaraya daawadayaal Maxamuud ayaa ciyaaraya oo foragacan u tuuraya Koonfur Galbeed ciyaartooyda waa yahay Banaadir qadka dhexe waa la soo tuuraya markaan Banaadir kubaddaasi waa laga soo saaraya daawadayaal kubadii markaan waa foragacan oo ciyaartooyda gobolka waa ciyaartooyda Banaadir ciyaartooyda kubadda cagta ee Banaadir ayaa markaan sameyn doona daawadayaal foragacanka waa la soo tuur markaan laakiin qatarteeda ay lahayd banaanka ay kubaddaasi kaga baxday ciyaartooyda Banaadir magacooda ku ciyaaraya daawadayaal golaayaha Koonfur Galbeed Cabdiwaahid ayaa soo tuuri doona oo soo tuura kubadii ciyaartuna waa gool eber Banaadir ayaa goolka iskala daawadayaal ciyaartooyda Koonfur Galbeed ayaa goolkaas lagu leeyahay qaybtii hore ciyaarta ayaa soconaysa Koonfur Galbeed markaan waa iska soo saarayaan qadka dhexe ee tala sayga saaxiibadii ay la ciyaaraya xasan kubadii uu shuuday goolahay Koonfur Galbeed ayaa kubadda helaya markaan shoot ka timid ciyaartooyga lambarka 12aad ee kooxda Banaadir waya Koonfur Galbeed ciyaartooyga bedel ku soo galay sayga ayaa ka saaray madax ayuu sameynaya control fiican markaan waa laga soo saaray laakiin kubadii madax ay sameynayaan cadaan kubadii maynas asiga ayaa haya garsoorkii socodta ayuu leeyahay Koonfur Galbeed markaan Banaadir ayaa helaysa saaxiibkii wali markaan asiga ayaa haya xawdku fadid fiican laakiin waa iska soo saarayaan Koonfur Galbeed gees kale qadka dhexe ayuu sameynayaan control fiican aadan gees kale ayuu geenayaa ciyaartooyga Koonfur Galbeed ayaa markaan duulaan daawadayaal waa la soo tuura kubadii waa iska soo saarayaan Banaadir Koonfur Galbeed markaan control fiican kubadii dhinaca kale ayaa loo soo tuuraya ciyaartooyga Koonfur Galbeed kubadii asiga ayaa celiyay wali asiga ayaa haya fursad fiican markaan waa laga diiday laakiin uu ciyaartooygii maro banaanka ayaa soo laga saaray daawadayaal markaana waa geeslaad ama corner kick ayay soo tuura doonaan ciyaartooyda Koonfur Galbeed magacooda ku ciyaaraya daawadayaal Axis Sports TV ayaa nagala socotaan Banaadir waa gool Koonfur Galbeedna waa ever qaybta hore ciyaarta ayana soconaysa wala soo tuura markaan cross madax markaan Banaadir waa iska soo saareen laakiin may noqon ciyaartu wali waa gool eber daawadayaal wala soo tuuri doona markaan geeslaad kale ama corner kick ay soo tuura doonaan ciyaartooyda in Koonfur Galbeed magacooda ku ciyaaraya tartanka ayaa ah in labada group ee loo qaybiyay midna uu ka soo baxo 3 way wala soo tuur markaan waa iska soo saareen ciyaartooyda gobolka ciyaartooyda Banaadir waa iska soo saareen daawadayaal tartanka ciyaaraha gobolada dalka Soomaaliya ciyaartu waa gool eber Koonfur Galbeed ciyaartooyda magacooda ku ciyaaraya ayaana goolkaasi lagu leeyahay daawadayaal qadka dhexe markaan Koonfur Galbeed ayaa helaysa wali markaan haadiye kubadii asiga ayaa haya
laakiin qalab ayaa lagu galay waa loo dhigayaa wiilka bedel ku soo galay lambarka 12aad ee kooxda koonfur galbeed ciyaartooyga mahdi la yiraahdo ee lambarka 10aad ee kooxda koonfur galbeed ahna kabtanka kooxda koonfur galbeed ayaa markaan soo tuuri doona mahdi kubadda asiga ayaa soo tuuri doona mahdi kubaddii wuu baasay saaxiibkii fursad fiican markaan cross waa iska soo saareen banaadir madax ay sameynayaan ciyaartooyda koonfur mar kale banaadir fursad fiican ay sameynayaan waa iska soo saareen koonfur galbeed kubaddaasi banaanka ayay ugu baxaysaa daawadayaal banaadir faragacan ay sameynayaan markaan qalad waxa leeyahay dib ku celi faragacan kale فرصة عمل كان عيارتويدا في عمر كان عيارتويدا بنادر عيارتويدا بنادر جول كلا ولا عيارتا أي لي ما ذي عيارتويدا بنادر جول كلا بعد أي لي معنا يان عيارتويدا بنادر جول كلا بعد عيارتا أي لي كان وحن يدي لنا هني جمعة ولا أكسر مالي ولا أكسر جران كوا بنادر الاستاديو واي باستين كوفر قلب المكان وصفي على يسنين أيام لما ركع جيس كلا يجين أيام لكن وافر رجع المكان كوفر قلب هذا أيام مكان يأخذ مقعد كل عيال يا صومين دونا فرجعا محمود كبدي وحلي يهدبوا علي garsoorkii ayaa markaan dhinaca banaadir kubadda siinaya fargacan ayuu sameyn doonaa ciyaartooyga jaamac axmed la yiraahdo control fiican kubaddii maxamuud banaanka ay kaga baxday fargacan ayay sameyn doonaan ciyaartu waa qaybtii hore waana 2 gool yeber kooxda banaadir ayaana labadaas gool ku leh digeeda koonfur galbeed weerar markaan banaadir fursad fiican markaan هالسعودة يوليها قرصوركا ما مساعبك يولي عياريا لكن سيغا يا بنانكا قصاريا كوباداسي وفرقعا كوفر قلبيت عيارتويغا محايد لرادا يا سمين دونا ووصوتو ركوبدي مدح
gees kale ay u soo gadinayaan weli fursad fiican koonfur galbeed weli fursad fiican markaan laakiin waa yahay mar kale laakiin ma noqon kubadda bannaanka ayay isaga saarayaan ciyaartooyda banaadir waana geeslaad maxayaad ciyaaryahan kaleeda ayaana soo tuuri doonaa maxayaad ciyaaryahan kaleeda ayaana soo tuuri doonaa markaan geeslaadkii waa ay ka timid geeslaadkii madax markaan banaadir fursad kale koonfur galbeed waa yahay weli weerar banaadir laakiin waa iska soo saarayaan kubaddaasi waa markaan bannaankay u baxday waa foragacan ciyaartooyga koonfur galbeed ayaa markaan kubaddii foragacanka samayn doona maxamuud ciyaaryahan kaleeda ayaana samayn doona way soo turo kubaddii gees kale ayay geenayaan laakiin waa iska soo saarayaan mar kale waa la soo tuuray markaan gees kale control fiican koonfur galbeed si qurux badan lamarka 10aad mahdi garsoorka ayayse ku dhacday weli markaan golaayay kubaddii waa laga qabsanaya daafaca koonfur galbeed ayaa helaysa lambarka 5aad si qurux badan ayuu u daalaamayaa cabdulaahi wuxuu la ciyaaray aadam ayaa xoogsanaya saaxiibkii ha socota garsoorka ayaa saqad dhigay garsoorkii qalad ayuu ka dhigay lambarka 9aad ee kooxda kubadda cagta ee koonfur galbeed aadam kadib qalad uu ku galay axmed nuur baana ciyaaryahanka la yidhaahdo waa la soo tuuraya markaan control fiican banaadir waa loogu dhex tuuray banaadir fursad fiican ay samaynaysaa qatar ayay ahayd kubaddaasi bannaankaas ayaynu u baxday daawadayaal bannaanka ayay ka martay ciyaartooyga lambarka 7aad ee banaadir liibaan ciyaaryahanka la yidhaahdo waayahay lambarka 8aad koonfur galbeed ayaa ciyaaraya maxamuud madax ayuu samaynayaan banaadir gees kale markaan kubaddii ha socota ayaa la leeyahay si qurux badan weli banaadir fursad fiican ayay samaynaya ciyaartooyda banaadir lamarka 16aad laakiin ma aysan noqon kubaddaasi kubaddii uu rabay inuu tuuro ma aysan u noqon waayahay maxamuud lambarka 8aad ee koonfur galbeed ayaa ciyaaraya kubaddii dhinaca kale ayaa u soo gadiyey aadan control fiican aadan kubaddii dhinaca kale ayuu soo gadi rabay waayahay ha socoto markaan koonfur galbeed lambarkeeda 11aad laga saaray kubaddaasi kubaddii bannaanka ayaa looga saarayaa foragacan maxamuud lambarka 3aad ee koonfur galbeed ayaana markaas samayn doonaa kubaddii ayaa markaan samayn doona kubaddii markaan mahdi asiga ayaa haya saaxiibka ayuu la ciyaaraya fursad fiican koonfur galbeed waa yahay laakiin ma noqon dheere kubadda golhayaha banaadir dheere cabduqaadir dheere ayaa kubaddaasi helaya daawadayaal kubaddii asiga ayaa soo gacmeeye koraya ku maqan tahay madax ayuu samaynayaan koonfur galbeed ciyaartooyga maxamuud ayaa u ciyaaraysa magaca oo ka kala tirsan labada koox banaadir iyo koonfur galbeedba qaybta hore ciyaarta ayaa gabagaba ku sii dhow daawadayaal wala 2 gool iyo ber koonfur galbeed ayaa labadaasi gool lagu leeyahay garsoorkii ha socota ayuu leeyahay ciyaartooy banaadir ka tirsanna dhulka ayaa la dhigay forgacan ayuu samaynayaa lambarka 2aad ee banaadir ciyaaryahan ka lahaada muxiyadiin ha socoto seega saaxiibka ayuu la ciyaaraya gees kale ayuu geenayaa fursad khatara markaan laakiin qalad ayuu dhigayaa garsoorka koonfur galbeed qalad ayaa laga dhigayaa banaadir ayana qaladkaasi loo dhigayaa access borsi tv ayaad nagala socotaan si leef ah waayahay banaadir ayaa markaan samayn doonta kubaddaasi inay soo tuurtaan waana kubad halisteeda leh ma marka qaar la dhalin karo ma marka qaar khatar gelin karta ma marka qaarna bannaanka mari kartaa waayahay garsoorkii seeriga wuu yeeriyey ciyaartooygii banaadir kubaddii u ridaya libaan way ka timid kubaddii laakiin golaayi koonfur galbeed ayaa helaya kubaddii golaayi koonfur galbeed uu soo tuuray kor ayay ku maqan tahay madax ayuu samaynayaa kabtankii seega gees kale ay samaynayaan koonfur galbeed kubaddii banaadir kubadda bannaanka kaga baxaysa maxamuud kubaddii asiga ayaa tuuri doona lambarka 3aad ee kooxda koonfur galbeed waa iska soo saarayaan kooxda banaadir fursad fiican ayuu samaynayaa seega saaxiibka ayuu la ciyaarayaa
كنترول مركان وويرر حسن عياران كسواري ولا قاضية مركان كوفر قلبت سعيد كيولا عياريان قال كداحي ماذا يا عياريا ماذا كبد يسقى يا هيا ماذا كبد يسقى يا عيدو سيلا ماذا جيس كلا يوجينيا محمود كبدي لكن وحلا دقيقة علامة قعنتها قارصوركي علامة قعنتها يقول وحنا وديبي علامة جاليه يقهرية تتكلم بحيو وحنا قالنا لمركة تضباده كوحدة كبدا عالتي بنادر عيارتوغا الليمان ليراهدو waxa uu sameeyay rikoor cajiib ah waxa uu noqday ciyaartooyga ugu horeeyay ee calaamada jaalaha la guddoonsiyo galabta maadaama uu yahay kooyinkii ugu horeeyay tartanka la ciyaaraya daawadayaal waa 2 gool iyo eber mahdi kubadi waa ciyaartooyga ugu dhaqaaqa fiican koonfur galbeed waa lambarka 10aad ee koonfur galbeed waa ciyaartooy meel kasta taagan ciyaartooyga dheer la yiraahdo ayaa haya markaan oo goosha ugu jira banaadir goolahayaheeda ayaa markaan ciyaaraya kubadi banaadir asiga ayaa ciyaaraya daawadayaal gees kale ay geerayaan asiga ayaa duulaamaya xasan kubadi asiga ayaa haya maxamuud ayaa sa ka dhigay xasan ayaa sa helay garsoorka qalad ayuu dhigay ciyaartoydii banaadir garsoorka ayaa qalad u dhigay ciyaartoyda banaadir ayaga ayaana soo tuuran doona Access Sports TV ayaa nagala socotaan daawadayaal asxaabta muqdishiina waaxigada ku sugan maalin wanaagsan kuwa kale ee Access Sports TV nagala socday page-ka Facebook aan ku leenahay sida tooska ah waxaan u leenahay maalin wanaagsan banaadir kabtankooda sayga oo soo tuuray madax marka koonfur galbeed qatar ayaa sameeyay banaadir markale koonfur galbeed kubadaasi banaanka ayay ku sigteen goolka in laga dhaliyo waayahay banaadir kubadii maxamuud qad ka dhaxay taala waayahay xasan liibaan ayaa sala ciyaaraya ciyaaraanka buush la yiraahdo buush saaxiibkay la ciyaaray fursad fiican markaan gees kale ay galganaya mahdi waxa sala ciyaaray fursad fiican markaan waayahay markaan banaadir gool ay la yimaadeen ciyaartoydii banaadir goolkii saddexaad ee ciyaarta ayay dhalinayaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee banaadir daawadayaal goolkii saddexaad ayay dhalinayaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee banaadir ciyaartuna waa 3 gool iyo markaan daawadayaal ciyaartoyga ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee banaadir ayaana dhinaca kale u dabaaldegaya ciyaartuna waa 3 gool iyo eber markaan daawadayaal 3 iyo eber ay ciyaartoyda banaadir ka horkacayaan dhigooda koonfur galbeed ciyaartoyga lambarka 16aad ee kooxda kubadda cagta ee banaadir ayaa dhalinaya goolkaasi ciyaaryahanka buush ku magac dheer ayaan goolkaasi dhalinaya daawadayaal 3 iyo eber koonfur galbeed eber banaadirna waa 3 Access Sports TV adam saaxiibkay ula ciyaaray qatar laakiin goolhayaha banaadir ayaa kubadaasi si halisa oo aan dhibaato sidaas u xoogan lahayn ku qabtay banaadir sayga markaan saaxiibkay ula ciyaaray cabdi kubadii dhinaca kale xaduud cabdi ayaa loo soo celinayaa qad ka dhaxay markaan koonfur galbeed kubadii uu tuurmaysan noqon laakiin axmed ayaa sir helaya waa la soo tuuray markaan buush kubadii waa laga soo saaraya koonfur galbeed ciyaartoyga la yiraahdo ayaa soo saaraya control fiican markaan ciyaartoyga asiga ayaa haya lambarka 8aad ee koonfur galbeed maxamuud garsoorkii ayaa qalad dhigaya koonfur galbeed ayaa laga dhigaya banaadirna waa loo dhigaya ayaga ayaana hadda baasan doona daawadayaal ciyaartu waa faragacan markaan way baaseen gees kale ay geenayaan fursad fiican markaan waa iska soo saareen ciyaartoyda koonfur galbeed mar kale garsoorku wuxuu leeyahay waa faragacan kubadii faragacanka way baaseen ciyaartoyda dhaxtuur ay sameeyaan waa la soo tuuray markaan gees kale control fiican ay sameeyaan ciyaartoyga laakiin banaanka ay kubadaasi u baxaysa daawadayaal ciyaartu waa 3 gool iyo eber Access Sports TV ayaa nagala socotaan tartanku waa ciyaaraha gobolada dalka waxaana ciyaartu ugu horeysa lagu daafuray banaadir iyo koonfur galbeed waana 3 gool iyo eber waayahay banaadir madaxaya sameynayaan koonfur galbeed si qurux badan markaan عزان ayaa haya maxamed kubadii waa u tuuray waaya fursad fiican markaan garsoorkii waxa uu dhigay wuxuu leeyahay waa galab dhaaf waa offside ayaa la leeyahay waana laga dhigay ciyaartoyda koonfur galbeed kubad halista ay u sii socdeen
dhinaca goosha banaadir matageliyaashu sanadkan waa banaadir 25 sano kadib ayayna loo qabanayaan muqdisho madax markaan ciyaartooyga fursad fiican gees kale ay sameynayaan waa yahay asiga ayaa haya markaan garsoorkii ayaa qalad u dhigaya ciyaartooyga kooxda koonfur galbeed qalad ayaa laga dhigayaa daawadayaal kubadii waa la soo tuuraya markaan waa la soo korostay markaan maxamed kubadii golhayaha xulka gobolka banaadir ayaa markaan heeya kubadii way ciyaareen saaxiibadii ayuu la ciyaarayaa cabdinuur kubadii waa la soo tuuray gees kale markaan maxamuud ayaa haya ha socoto markaan muxyadii kubadii gees kale ayuu geenayaa waa iska soo saareen markaan gobolka ciyaartooyga maxamuud oo kubadda dhinaca kale u wareegsaday ayaa markaan kubadii haya daawadayaal ciyaartooy ka tirsan koonfur galbeed ayaa markaani garoonka yaalla ama dhaawacu soo gaaray garsoorkii ciyaartii wuu joojiyey kooxdii dhaqaatiirta ayaa loo wacay iyo lamarka 16aad ee banaadir ciyaartooyga buush la yiraahdo ee asna goolka saddexaad ee kooxda banaadir u dhaliyay ayaa asna garoonka yaalla labada team dhaqaatiirtooda ayaa markaan soo galaya labada dhinac ay dabiibeen ciyaartooyga lamarkii dixmaada banaadir ayaa garoonka ka baxay asigoo soconaya lamarka shanaad ee koonfur galbeed ayaa asna garoonka laga saaraya cabdinuur ayaa ciyaaraanka la yiraahdo cabdullaahi ayaa banaanka laga saaraya daawadayaal macalinka kooxda kubadda cagta ee banaadir ayaa la hadlaya ciyaartooydiisii garsoorkii labada team labada ciyaartooy ka kala dhaawacantay ayaa banaanka loo saaray lamarkii 13aad ee kooxda koonfur galbeed ayaa laga kiciyo kursiga waxaanu ku jira iskuleenta cabdullaahi iyo buush waxay sugayaan inuu garsoorka u yeero si uu ogolaado garoonka ay soo galaan mar kale waa uu ogolaado wayna soo galeen ciyaartooyga dheere oo goosh ugu jira banaadir ayaa markaan kubadii haya daawadayaal dheere badbaadin cajiib ayuu sameeyey inta qaybtan hore ciyaarta ay sii soconaysa waxaana uu ku sii dhow yahay in gooshiisa oo nadiif ah uu garoonka ka baxo qaybta hore markaan wax qiimeeyay waa yahay maxamuud kubadii uu soo tuuray dheere ayaa helaya ciyaartooyga dheere ee goosh ugu jira kooxda banaadir ayaa markaan kubadii haya waa la soo tuuray markaan fursad fiican ay sameynayaan madax control fiican dhaxda markaan waa la soo tuuraya waa iska soo saareen koonfur galbeed ciyaartooyda banaadir asiga ayaa haya marka toddobaad kubadii dhinaca kale ayuu u baasay fursad fiican markaan banaadir karoos ayaa ka imaanaya laakiin ma noqon kubadaasi banaanka ay u baxdo daawadayaal oo waa markaan waa geeslaad ama corner kick ayay sameyn doonaan ciyaartooyda kooxda banaadir ciyaartooyga lamarka 12aad ee lagu magacaabo Minus oo qayb kamid ah saddexda gool mid kamid ah shabaqa soo taabtay ayaa markaan soo tuuri doona geeslaad markaan daawadayaal hadduu weyba uu qadaro waayahay cross ayaa ka imaanaya markaan madaxya sameynayaan koonfur galbeed garsoorkii qalad ayuu ka dhigayaa mar labaad ciyaartooyga liibaan la yiraahdo ayaa kubadii gacanta ku taabtay waayahay markaan koonfur galbeed weerar fiican fursad fiican ayuu sameynaya asiga ayaa haysta wali lamarka 12aad koonfur galbeed seega ayaa saraacaya garsoorkii qalad ayuu dhigay ciyaartooyda banaadir ayaa qalad laga dhigaya calaamadii jaalaha calaamadii labaad ee jaalaha la bixinayo waxa qaadanaya ciyaartooygii labaad ee banaadir waxaan la siiyey lamarka 6aad kabtankii kooxda ninka lagu magacaabo seega ayaan qaadanaya calaamadii jaalaha daawadayaal lamarka 10aad ee koonfur galbeed ciyaartooyga mashiinka dhaqaajiyaha kabtankii mahdi ayaa sameyn doona markaan isku dayga in kubadaasi uu soo tuuro daawadayaal hadduu weyba uu qadaro Access Sports TV qaybta Facebookga ayaa sidoo kale dadka sida toos iminka inooga daawanayaan daawadayaal waa yahay mahdi kubadii waxa uu uga tagay saaxiibkii koonfur galbeed ka tirsan ciyaaraanka lamarka labaad ee Muxyidiin ayaan kubadii ugu tagay garsoore maxamed Soomaali ayaa kubada wali aan ku dhawaaqin kubadii seeriga la yeeriyo qaadka la toorto Muxyidiin wuxuu sugayaa seerigii
محمد صومالي وكده بدي سيرجي محيدين كبدي بنانكا كبدا بنانكا محمد صومالي وقصرها عيارتنا دحادنا يدا وديال محيدين كبدي دحدا يتعلى مركان ستوسا يدا وديال شو اكسس سبورتس قيبت فيسبوك إمك ستوسا ينودا ونيان عيارتو أيانا ستوسا سعنيسا قبو markan waqtigii waxa muuqanaya oo dheeriga in lagu dari doono madax markan oo ay soo tuuraya seega koonfur galbeed ayaa markan helaya 2 daqiiqo ciyaartu 2 daqiiqo ayaa lagu daray qaybta hore daawadayaal 2 daqiiqo ayaa lagu daray waa la soo tuuraya markan madax ay sameynayaan koonfur galbeed wali markan seega waa soo tuuraya aadam control fiican آدم ما كسجلت السجا يا هيا آدم لقى قاضي لا يا هي والله لقى قاطي هالصعته مدح مركان كوفر قلبين جالس كلا يوسف قدنا يان لمبر كسنات كنترول في عن معيدين ولا السجا يا هيا معيدين ولي فرصة في عن فرصة يساعدك ولا مكان كوفر قلبين لما كان الله يتبرد السجا يا هيا ولا مكان كروس ولا ما ينقل لك بناك يوكين واسك صارين لك بنادر كبده واسك صارين وانا فرقة عن داوديال عيارتويدا محيدين اللي يرادوا كوفر قلبت كنترول في عليه ولا عياريان صاحبكي مكان مهدي جيس كلا يوجنيان واسكسو صار مكان بنادر محمود دغدي هوري عيارة يلا مركز دحاد دافعة أيام مركن أوركسدي لمركن لبعض دافعة مركز دحاد وتا عيارة مركن محمود وحوسقة بنوسو ردي إن قعنتا أما فورا قعنتا والله قد جاي لنا قبل كبنادر أما عيارتوي بنادر أيام لو بدلي إني صوت فوران داوليال وياهي مركان فرقعن حسن ليبان أيو لا عيارية عيارتو وحلي هاي وفرقعن مركان عيارتو ده كفر قلبي عيار سمين دونا فرقعن كوي باستين كنترول في عن محمود كبدي وصوت هوري آدم عيارتو دورة ويصوص عليه بنادر وياهي كفر قلبي عيار ليسا بنادر مركان ووارر فرصة في عنا يوسمينا يا حسن صاحبك سايقة كبدي لنا كلا يوسو قدنا يا بنادر جامع أحمد آدم عيارين كل بعده جامع كبدي مركان فرصة في عمر كان كوفر قلبت سايقة عيار دقالة ميا سيقو جيفة فرصة في عمر كان قرصور كي قرض يقول لي عيار تويدي كوفر قلبت أيون قرض لي سدح يبر بنادر وسدح كوفر قلبت نوائبر أكسي سبورتس تي في عيار نقل الصعوتان كوفر قلبت وحي يستا فرصة كلا haddii ay kulanka xiga ay ciyaaraan inay ka mid noqon karto kooxaha u soo gudbay wareegga xiga ee tartankan waayahay markan kubadii way dhamaatay qaybta hore daawadayaal way soo gabagabowday waxaynu ku soo gabagabowday 3 gool iyo eber banaadir waa 3 koonfur galbeedna waa eber qaybta labaad ee ciyaartan ayaan eegi doonaa hadduu eebo u qadaro waxyaabaha iska bedelo la tashiyada ay sameyn doonaan daqadaha kooban ee ciyaartan markaan garsoorku uu fasaxayo waxaana ciyaartu ay tahay mid aad u adag 3 gool iyo eber 3 gool iyo eber ay ciyaartu ku soo dhamaatay qaybtii hore waxaana banaadir u tahay fursad kale oo aad iyo aad u fiican ay haystaan markaanu eegno qaybta labaad ee ciyaarta marka ay bilaabato hadduu eebo uu qadaro waxaan eegi doonaa waxa isbedela qaybta labaad ee ciyaartan marka ay bilaabato ciyaartoyda qoslayo oo ciyaartoyda gobolka banaadir 3 gool ay leeyihiin qaybta hore ee ciyaarta waad maasantahay shooblow ciyaartoyda gobolka banaadir oo in muddo ku xareysnaay goob aan markaas garoonka ciyaarta ku dhaceysa aan ka dheereen ayaa 3 gool ku hogaaminaysa qaybta hore ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee koonfur galbeed waliba kubadda ciyaartoyda gobolka banaadir waxa ka muuqatay shooblow isku dhidhib kubadda inay isku dhidhibaan waliba si wada jira u ciyaarayaan iyo dhanka difaaca dhanka weerarka iyo waliba heesashada kubadda iyaga ayaa markaas ku badnaa koonfur galbeed kama yareysato iyana si wanaagsan ayuu ciyaaraysay laakiin ilaa iyo haatan shabaq umaysan taaban ama goolka koowaad ma aysan la imaanin kooxda kubadda cagta ee koonfur galbeed sidoo kale gobolka banaadir ciyaartan qaybta hore soo idlaatay waxyaabaha laga bartay waxa ka mid ah in marka labadii kaar ee ugu horeysay kaararka markaasi jaalaha ama calaamada jaalaha
la bixiyay ee qaateen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee banaadir iyaga ayaa la siiyey koonfur galbeed ilaa iyo haatan wax markaasi kaar ma aysan qaadan tababaraha kooxda koonfur galbeed ayaa sameynaya wadatashi ku aadan in markaasi ciyaartooydiisu ay wax ka bedelaan qaab ciyaareedka kulankan oo ku soconaya maadaama kooxdiisu qaybtii horeba 3 gool lagu leeyahay waayahay dhanka banaadir waayahay qoslaayo fursadda ay u haysatay ka waran markaan in koonfur galbeed ay iska soo gudaan 3 gool ee looga hormaray qaybtii hore ciyaarta ciyaartooyda gobolka banaadir waxa ay markaasi la yimaadeen qaybta horeba 3 gool kama yareystaan dhanka koonfur galbeed waxay fursad u heli karaan in markaasi ay la yimaadaan iyana goolasha iskaga soo gudayaan maxaa yeelay koonfur galbeed waxay haysataa 45 daqiiqo kaleeto waqtiga la ciyaaraya ciyaarahan 90 daqiiqo ee loogu talagalay koonfur galbeedna fursad waxay heli doontaa inay u soo baxdo wareegga xiga ee tartankan oo kana soo gudubto wareegga guubyada haddii ay markaasi guul ka gaarto kulanka labaad ee kooxda koonfur galbeed ee ciyaari doonto kooxda banaadirna 3 dhibcood iyo 3 gool ayay markaasi qaybta hore ciyaarta ee gacanta ugu jirto laakiin wax walba waxay isbedeli doonaan 90 daqiiqo ciyaarta marka ay soo idaato waayahay sida muuqanaysa daawadayaal labada kooxood ayaan geli doonin qolka labiska ee dabadashada ah sabab la xiriira teemka oo aad u yar iyo waliba waqtigii ciyaarta inay bilaabatay oo la rabay oo dib xoogan uu ku yimid ayaa kalifaysa in 45 daqiiqo dambe ee qaybta labaad ee ciyaarta ka dhiman ay ciyaartooydu ay daqiiqo kooban ama daqiiqadii caadiyan loogu talagalay nastaan la soo gaabiyo si loo helo 45 daqiiqo dambe ee qaybta dambe ee ciyaarta ay bilaabato labada kooxna ay helaan waqti ku filan iyo waliba sida sharciga ciyaaruhu ay qabaan marka tartanku oo noqdo 45 daqiiqo la ciyaaro koonfur galbeed ayaa bedel sameyn doonto oo ciyaartooy dhowr ah ayaa garoonka ka saari doonaan oo saddexda sharciga bedelka uu qabo ayaan garoonka laba kamid ah ama mid kamid ah ciyaarta ka saareen qaybta hore halka qaybta labaadna sidoo kale ka saari doonaan hadduu weyba uu qadaro waayaa waneegi doona oon waxa isbedela dib u bilaabashada qaybta labaad ee ciyaarta waxaan aad ugu mahadcelinaynaa daawadayaashu sida tooska hadda inoo daawanaya ku sugan muqdisho iyo caalamka oo ay sida toos ay nagala socdaan barta aan Facebook aan ku leenaanay Access Sports TV ayay si toos ay nagala socdaan qaybta Facebook live-ka muqdisho oo si toos ay naga daawanayaan asxaabta channelka Access TV haysata ciyaaruhu goboladana aan si toos u soo tabin doona hadduu weyba uu qadaro kuna walba oo ka tirsan hay qosla maxaa ku sidreysaa sidoo kale muddo 10 cisho ayay markaa ciyaaruhu socon doonaan qaybta labaad ee ciyaarta ayaa dib u bilaaban doonta koonfur galbeed ayaa bedelka labaad sameyn doonta waxaana markaasi koonfur galbeed ay bedeli doontaa ama ay keeni doontaa ciyaaryahanka lambarka 13aad ayay bedel ku soo gelin doontaa kooxda koonfur galbeed taageerayaal fara badan ayaa u soo daawasho tagay qaybta hore ciyaarta way soo ilaatay qaybta labaadna dib ayay u bilaaban doontaa koonfur galbeed iyo banaadir waa 3 gool iyo waxba Access TV Sport ayaad ka daawanaysaan saaxiibayaal waxaa la bedelayaa lambarka 11aad ee kooxda koonfur galbeed lambarka 11aad ee kooxda koonfur galbeed ayaa markaa la bedelayaa waxaana soo galaya lambarka 13aad waa bedelkii labaad ee ciyaartu ay sameeyaan xidigaha kooxda koonfur galbeed macalinkooda dib ayay u bilaaban doontaa garsoorka ayaa markaa laga sugayaa in seerigu uu yeeriyo si qaybtii labaad ee dib u bilaabato waxay bilaabatay qaybtii labaad ee ciyaarta xidigaha kooxda kubadda cagta ee banaadir ayaa markaan wada ciyaaraya koonfur galbeed waa kan cross banaadir ayaa kubadda heesa weli koonfur galbeed ayaa la wareegtay weli lambarka labaad ee koonfur galbeed waxay wada ciyaarayaan xidigaha banaadir waa iska soo tuureen waa kan banaadir weli iyaga haya koonfur galbeed markan garsoorku waxa uu tilmaamayaa in kubadda banaanka ay kaga baxday dhanka koonfur galbeedna loo wadaya lambarka 7aad ee banaadir waa uu soo tuuray kubadda mar kale koonfur galbeed banaadir waxay wada ciyaarayaan qadka dhexeeya kubadda taal
weli xidigaha kooxda kubadda cagta koonfur galbeed ayaa weerara markan waa kan iyagaa weli haysta kubadda 18 weerar koonfur galbeed banaadir ayaa la wareegta kubadda weli banaadir waa iska soo tuureen xidigaha koonfur galbeed ayaa markaasi kubadda dhanka banaadir ayaa taal qalad ayuu garsoor ku dhigayaa maxamed nuur muxudiin ayaa qaladkaasi dhigay waxaana loo dhigay koonfur galbeed laad xora ayaa tuuran doonaan xidigaha koonfur galbeed dhanka banaadir ayaana loo wadaa ciyaartuna waa 3 gool iyo waxba lambarka 13aad ee bedelka ku soo galay iyo xidiga lambarka 12aad oo isna bedel ku soo galay ayaa u taagan tuuran laadkaasi waliba xidiga lambarka 12aad waa laad xora dirinta ganaaxa banaankeeda ayuu markaa yeeshaa ama taal kubadda waa kan koonfur galbeed seeriga ayuu sugayaa inuu tuuro laadkaasi xidigaha banaadir ayaa hortaagan oo kubadda iska difaacaya garsoorku ayay markaa ka dhor sugayaan koonfur galbeed seeriga waa loo yeeriyo koonfur galbeed goolaya dheere xaaji dheere waa goolaya dheere xaaji oo kooxda banaadir markaasi gooshu ilaaliya waa uu soo tuura goolaya kubadda banaanka ayay markaa qadka dhexe way wada ciyaarayaan koonfur galbeed weerar ayay ku jirtaa 18 koonfur galbeed fursad fiican oo gool ayaa ka saaray kubadda markan banaadir mar kale xidigaha banaadir ayaa kubadda haya banaanka ayay markaa u saareen mid ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee banaadir ayaa yaal kaasoo kubadda ka difaacay mid ka mid ah xidigaha koonfur galbeed kooxda caafimaadka ayaa markaa loo yeerayaa kuwaasoo qiimeyn doona xaaladda ciyaaryahankaasi Axis TV Sport ayaad naga daawanaysaan saaxiibayaal ciyaartuna waa 3 gool iyo waxba kooxda caafimaadka ayaa la tacaaliyay ciyaaryahankaasi ka garoonka ayay markaasi ka saari doonaan kooxda caafimaadka ciyaaryahankaasi ka tirsan kooxda banaadir kaas oo markaa ku dhaawacmay kubad uu ka saaray lambarka 9aad ee koonfur galbeed waa la qaadi doonaa xidiga sidoo kale xidiga markaasi goosha kooxda banaadir ayaa isna yaal dheere cabduqaadir dheere ciyaartu waa 3 gool iyo waxba labada kooxood ee banaadir iyo sidoo kale koonfur galbeed saddexda goolba ee banaadir qaybta hore ciyaarta ayay markaasi la timid waxaana markaasi banaadir xidigeedu ee la yimaadeen goolasha qaybtii hore ciyaarta markan kubadda waa la baastay koonfur galbeed weerar iyo banaadir ku jiraan banaadir waatan banaadir ayaa weerara oo weli iyaga ayaa koonfur galbeed ayaa kubadda banaanka iskaga saaray banaadir weli banaanka ayay markaa kubadda looga saaray koonfur galbeed ayaana iska saartay
xidigaha koonfur galbeed ayaa dhankooda loo wadi doonaa geeskalaad waxaana soo tuuranaya xidigaha banaadir oo 3 gool ciyaarta ku horkacaya banaadir waa ay soo tuurteen madax way iska saareen koonfur galbeed weliba waa ay soo tuureen qaybta dhexe waa kan banaadir ayaa ku keliya koonfur galbeed ayaa weerara madax banaadir goolaya dheer cabduqaadir isaga haya kubadda waa uu tuuran doonaa kubadda goolaya dheer cabduqaadir waa uu soo tuuray qadka dhexe kubadda markanna waxaa haya xidigaha kooxda kubadda cagta koonfur galbeed banaadir ayaa la wareegtay banaadir waa la gediyey markan garab ka midig koonfur galbeed ayaa kubadda durba u tagtay mar kale koonfur galbeed bannaanka ayaa kaga baxda gacantuur ayaana dhankooda loo wadi doonaa kooxda banaadir ayaana tuuran doontaa banaadir ayaa kubadda haysata koonfur galbeed ayaa la wareegtay waa kan xidigaha koonfur galbeed weerar 18 koonfur galbeed fursad fiican cross goolaya dheer cabduqaadir ayaa kubadda gacanta ku dhig isaga ayaana tuuran doona waa uu soo tuuray goolaya dheer cabduqaadir qadka dhexe koonfur galbeed iyaga haysta xidigaha koonfur galbeed banaadir ayaa iska saartay kubadda weli daafaca koonfur galbeed qadka dhexe ayay taal kubadda weli weerar waxaa xidigaha koonfur galbeed banaadir ayaa madax iskaga saartay mar kale waa ay wada ciyaareen banaadir koonfur galbeed ayaa kubadda la wareegtay waa ay wada ciyaareen xidigaha koonfur galbeed banaadir ayaa durba la wareegtay kubadda si wacan waa ay wada ciyaareen waa ay ka baxda kubadda si qaldan ayuu markaa ugu baasay xidiga gacantuur koonfur galbeed ayaa soo tuuran doonta ciyaartu waa 3 gool waxba koonfur galbeed ayaa lagu leeyahay banaadir ayaana markaas 3 gool leh qaybta labaad ee ciyaarta ayaana soconaysa Axis TV Sport ayaad nagala socotaan saaxiibayaal goolaya dheer cabduqaadir ayaa kubadda soo tuuran doona markan way soo tuurteen banaadir qadka dhexe koonfur galbeed ayaa madaxeysay weli banaadir koonfur galbeed ayaa kubadda haysa markan xidigaha koonfur galbeed ayaa wada ciyaaraya afraad koonfur galbeed weli xidigaha kooxda kubadda cagta koonfur galbeed ayaa kubadda isku dhidhiibaya iyaga haysta qadka dhexe ayaa markan loo soo gediyey waa kan garabka midig koonfur galbeed waa laga saaray kubadda banaadir ayaana banaanka iskaga saartay waxaana kubadda banaanka u saaray liibaan waxaa markaas soo tuuran doona gacantuur muxidiin oo lambarka labaad u xigta laakiin garsoorka ayaa hakiyey mar kale waa uu soo tuuranaya muxidiin madax banaadir koonfur galbeed ayaa soo tuuratay banaadir ay iska saartay mar kale madax koonfur galbeed banaanka ayaa u baxday dhanka koonfur galbeed ayaana loo wadi doonaa banaadir ayaana tuuranaysa way soo tuurteen banaadir waa kan banaadir waxaa markan weerara xidiga lambarka 10aad ee kooxda banaadir mahdi laakiin kubadda ayaa baxday qalad ayaa markaa laga dhigay koonfur galbeed ayaa soo tuurtay qadka dhexe banaadir waa kan liibaan saaxiibkii ayuu la ciyaaray koonfur galbeed ayaa iska saartay mar kale waa kan xidigaha weerarka koonfur galbeed banaadir markan koonfur galbeed fursad fiican goosha ayaa la dhigi doonaa kubadda markanna waa ay soo tuurteen banaadir waxaa loo wadi doonaa dhanka koonfur galbeed gacantuur xidigaha banaadir ayaana soo tuuran doonaan gacantuurka
banaadir ayaa dhankeeda loo wadi doonaa markana kubaddu banaanka ay kaga baxday koonfur galbeed waa ay wada ciyaareen waa la soo tuura kubadda waa lagu dagaalamayaa banaadir ayaa banaanka iskaga saartay Axis TV Sport ayaad naga daawanaysaan ciyaartu waa 3 gool iyo waxba banaadir ayaa 3 gool ku horkacaysa qaybtii labaad ee ciyaarta ayaana soconaysa markan qalad ayuu garsooruhu dhigayaa dhanka koonfur galbeed ayaana loo wadi doonaa maxamed nuur muxidiin ayaana bixinaya kaarka jaalaha waxaana la siinaya xidiga lambarka 10aad ee kooxda koonfur galbeed Mahdi banaadir waxa ay duuran doontaa laad xora iyagaa soo tuuran doona kubadda waa tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka banaadir oo ay soo tuurteen koonfur galbeed ay iska saartay mar kale waa ay baxda kubadda dhanka koonfur galbeed ayaana loo wadi doonaa xidigaha koonfur galbeed ayaa markaan weerara laakiin banaadir ay iska saartay waa ay ka baxda kubadda gacan tuurna dhanka kooxda banaadir ayaa loo wadi doonaa markaan lambarka 9aad ee koonfur galbeed aadan isaaq goolaye dheere cabduqaadir dheere ayaa kubadda banaanka iskaga saaray corner kick koonfur galbeed ayaa soo tuuran doonta fursad qaali ayay ahayd banaadir waa iska saartay weli banaadir ayaa haysa kubadda xidigaha koonfur galbeed lambarka 5aad cabdulaahi ayaa haya cabdulaahi waa kan saaxiibkii ayuu la ciyaaray weli koonfur galbeed lambarka 10aad Mahdi waa laga saaray cabdulaahi weli banaadir ayaa markan la wareegtay koonfur galbeed mar kale qaybta weerarka dhexe weli koonfur galbeed weli iyaga haya kubadda gool ayay u tagtay mid ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta